diyaaradii wadday 25 qof oo ku koobanaya 4 qoys oo yahay ku duuli haryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya roornimadii hore ay hiraabtan abaara 3 saac waliba yahay alug dhakatay 5 saac iyo bara xiraanimo ee geeka garoonka diyaarado ee Shaati Gaduud International Airport ee magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay diyaaradan oo yahay wadday muwaadiniin Soomaaliyeed oo in muddo ka noolayeen harooyinka qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya iyo waliba isyo ee yooridanka nagadeena dhulka Kiisho gaar ahaan deegaanada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed walibana dhinaga dowladnimada ku taabkaleeyay hay'adda qaxootiga UNHCR garoonka diyaarado ee Shaati Gaduud International Airport ee magaalada Baydhabo waliba ka dhawaayay dadka ku kooyay dalka Kenya gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakayaalka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiqaadir Ali Maxamed aan hukuumadda shaqaalaha guddiga oo iyo weheliyayaan mas'uuliyiin ku dareertay hay'adda UNHCR hadawaayo gureed muwaadiniinta waliba lahan galbi xarunta hadawaayoka ama way station oo ka taala xaafadda ideeda ee magaalada Baydhabo meelaasi oo lanka diyaari martaqaad eedan fayla muwaadiniinta oo geeka hadeeri Baydhabo iyo waliba wajiyadii lagu dheehdaayay farhad iyo inay mar iyo ku hamiyayeen iniyo riidanka nagadan dhulka Kiisho iyago waana la haday muuqaal baahiyaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed daraan Kiisho ka eedan inay geeka si nabad iyo ka deeran dhulkii ayootiyo laakiin qoyn ma hirabto qoyn qoyn alxamdulillah siwan dhawaysana malayn si ku fayl wiilsi arani marka luukan oo qoyn marka alxamdulillah ila faraxsana oo qoyn beedo horta qaas Dadaab kaamkii ma sha Allah sufayla wala sanayna amni kaysani beedo oo sikala maadaama roni dambo inuu kale ku amsanay laakiin alxamdulillah suna malayn ma si ku fayla rayna ma bala faraysa gadan loo qoy wadan Kenya repatriation kana gadi ما شاء الله ميلان وقوين مهمين لكن ما دام ودن شيئته ميلي ولا أنا همبردين أنت أتوقع فرق بين الموبايل ودن كي الحمد لله والله عاد بفرد ما حقوق أيضا كفراسي Cabdiqaadir Ali Maxamed gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakayaalka Koonfur Galbeed oo dadkan Baydhabo ka dhawaay iyo waliba uu warbiyay meeliye marahay tiridan nagadowka dadka ka nool haryaha qaxootiga Dadaab ee Kenya iyo gurmudka ambaahayn dadka abaarta sameeyay ka nool deegaanada Koonfur Galbeed بسم الله الرحمن الرحيم بيك ومال الأربعة ولما قال هذا بيدوا هو هنا دتي دي بحق الله بدي ودن جوهرين كبيتين من كروجين ذلك كينيا أريها كروتيجا أداب واسوا حدد هم كنا قدين ديجان دي هرين كبركعين هيك تركوس أفرقوس ومقام اللغاتيشة أبيا ويوينك عيالك كقوم ويسيس كاسو ستحضر له الكديار قريبين بدك بيتي بركة عياش دولة الجولات في القلب يبدأ قرمة المدوري وقابل سمح بيتيجا أيون السيار ناس أو راح كدواي وممكن شاتي قريب ويقول لها قلبي حرونته اي ستيشن حرونته صو وكوغيان المالم iyo halhamin meela soo lanka dhameystira agabiyadii iyo la sii lahaay ilaa iyo baxnaano wali la sii muddo 6 bilood ah si lan walbaba lankii suurta gal in dib in kanagada deegaanada nabdoon oo baxnaanadiisna meelin ka deersiyo lankii alla lankii hirawna oo dhaxgalaw bulshada deegaankan Baydhabo oo qaraabadiisii dhaxgalaw ama bulshada isdhaxgal ah oo deegaankii ahna hadhawayaan waleen cadeynay in dalbiyo muddo ku noqonayaan oo dawladii nidaamka jira amniga ku jira meel alla meeli fadayaan oo magaaladaasna iyo mara koraan waana ku adeegada koraan waxa ku bilaabo sanadkii 2014 ولي تشتي قحوتيجي وكذابلاي إلا إيو لما كنت ميسجع ولي هايتي لما كنت سدبغل يا هايتي أقويس حتى أنا واحد كيس في مريك متدي لما كنا باتي كودي يترى قويس يدي ير تطميشان قويس يقويا كبعضنا ولي هبلا بدنا سنة كبيرة تغلا وجيك يقويا halkaasoo hadda uu galgay u walaal la kahay wasaaradda caafimaadka sida ay wasaaradda gaadiidka galanku jeysatay amniga iyo immigration ka iyo maamulka
wali geesi gelinay in daljo ha ka dhawaadaan oo si diiran ha ka dhawaadaan daljo shalay madi ku tabaayeen igeekana farqi aan dhaxay shalay wali in ku bogtaalena amni dardarti geekana wali dib han ka nagadeena iyagoo raali qaabku iyo ka kooyan oo lankasaw VRF afka qalaad wali kale voluntary repatriation lanka xariyahaas soo roogo hay'adda qaramada midoobay saada ee qaxootiga wali eray wali faday in dib ka nagada deegaanka ma aashilad iyo baydhabo qaar xamar aan bogtaalaya qaar jubada hoose kismaayo qaarna wali kooyana inta maadaama sadiida way station ka shal yaalan gobolka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo kan hadda roog kan lamid ah wali ka yaala kismaayo ka kalena wali ka yaala muqdisho lan walba meeli fadab oo haddana meelas badisay meeli kale yaan ku sii bogtaale ama ku gudube wali halkan lan ka tala galay markan soo dhaweyntiyo iyo baxnaaneyntiyo iyo nay ilaa iyo muddadaas la baxnaaneeyo police kormeer joogto ah ka hayd doona insha Allah ta'ala guddiga qaxootiga barakacayaasha dowladda goboleedka koonfur galbeed shaqaalahoodii inta jooga iyo haan ka teedsan degmooyinka sida degmada Diinsoor Shabeellada Hoose iyo gobolka Boqol ee degmada Xudur kuwaasoo kormeerkaasi oo mar walbaba la xiriirka xafiiskana si habsame ay u shaqeynayaan dowladda koonfur galbeed maadaama ay diyaarisay istiraatiijiyad oo xalka waara ah oo dadkan dhibaatooyinka soo gaaray kan soo laabtay iyo kan gudaha ku barakacay istiraatiijiyadaas oo xalka waara u raadinayo maadaama dadkan ay ahaayeen in dib ka nagadan deegaanadii shalay iyo ku kooyeen oo nololiyo dib han kabata wala juhdiga dowladda iyo giliyahayto taasoo suurtageliyay in la dejiyo qaxooti ilaa 2009 qoys ah dhul dowladda biidi ee koonfur galbeed 15 kilomitir square dhinaca waqooyiga ku aadan ilaa ay haddana wali jiray dadaal iyo juhdi ayagoo la suubi walaagii asaasiga ah oo lan qabada karo in kastoo dhibaato culays badan iyo jirta oo caqabadana ah abaaraha iyo amni dadka ku tabi meelaha ku tabi oo kooyan oo magaaladan ha galeen wali ka liftay duruuf abaareed taasoo dalka dhan badan ay ku dhiidi haddana koonfur galbeed ahaan maadaama dadkii roobka ka tiirsanayay ee hani webiga ka tiirsanayay intaba dhibaatada saameeyay geeka wali dadkii oo dhan iska kooyna magaalooyinka si iyo nabadgelyo iyo nolol galaan waana hay'adaha gargaarka iyo dowladda qaylo dhan badan oo soo biyahay guddiga taasoo ay la dhaantaasaytii ah in la gargaara oo dadka dhibaataysan duruufta hafood saarta taasoo badanaaba hadda la ka soo biyahaya dadaalada iyo juhdiga la ka wada oo hay'ado gargaarka oo UN-ka kuwa caalamiga iyo kuwa maxalligaba ay shalhirna iyo dadka oo well-wishers-ka lankasaw ama isjoonis abaabuleen ama dalka dibadiis roogan ama gudaar roogan iyo ganacsatada intaas dhamaantii wali galan ku jeeysadahayna dadka masaakiinta ah ee xiriir roogan oo aan baahan in la gargaara taasoo oo abuurtay tiro eedan culays badan ilaa iyo 500,000 qof in ka hayaanta baydhabo taariikhda abaarihii 2017 markii tan lambar dhika tan eedan dhib badanta abaari eedan dhib badan culays eedan dhib badan dowladana qayla dhaan badan oo soo biyahay dadaal badan oo soo biyahay juhdi badan geliyahay maadaama aan qaabil sanay barakacayaashii haan halaabadiba ee dowlad goboleedka koonfur galbeed una qayla dhaan kaas daba roogna hay'adona bixiyaan jawaabtaas in kastoo caqabadan ka weyn ah baahidiyo eedan weyn iyo nay walaagii hay'ado biyayaan oo iniska sargo amay lamada 54 horeeyay markii dadka nool xariyaha qaxootiga Dhadhaab bilaabeen inay isyo ereedan ka nagadan dalsho magaalooyinka Baydhabo Kismaayo Muqdisho ya waliba haan kumanaanka kun oo qoys ya ka nagadanga waana iyo hadiyo ka noolinga Ibrahim Xasan Ali warbaahinta koonfur galbeed Baydhabo